iyadoo xaaladda nolosha xeryaha dhadhaabi tahay mid ay caqabada ku xeeran yihiin ayaa haddana waxaa jira dadyow iyo ku haatan soo beegsanaya inay miciin bidaan ku noolaanshaha gudaha xeryaha dhadhaab. kuwani waa qoys ka mid ah eheladii allaha u naxariistee marxuun Axmed Mukhtaar Saalax Axmed Dowlo oo ahaa marxuunkii sida foosha xun loogu dilay magaalada Muqdisho dhammaadkii sanadkii 2018 waxay soo gaadheen gudaha xeryaha dhadhaab. qoyskan oo ka kooban 15 qof ayaa sheegay inay xaalad amni darro uga soo hayaameen dalkii Soomaaliya. Faadimo Axmed Maxamuud waa hooyada dhashay Maxamed Cabdiqaadir Mukhtaar oo ah wiilkii guurkiisu horseeday mushkiladda reerkan saameysay. waxay sheegtay in wiilkeedu haatan uu ku xayiran yahay hotel ku yaala magaalada Muqdisho loona haysto $30,000 oo ayna awoodin inay bixiso. waxay dalbanaysaa kaalmo bini'aadanimo oo degdeg ah. wiilkeyga Maxamed Cabdiraxmaan Mukhtaar hotel buu ku jiraa, waa laga haystaa $30,000 lagu haystaa inaa la dhiibo, anigana awood uma lihi. marka maxay ahaayto wiilkiina 4 saac way soo calacalaya, waxaan u awoodo ma lahan. wax meeshii kama soo bixi karo, lacagtaas la dhiibin meeshii lagama soo bixi karo. dadweynaha dal iyo dibadda ka nool waxaan weydiisanayaa oona walaaltinimo muslimnimada aan weydiinayaa inay soo caawiyaan wiilkaas meeshii iga xiran dartiisa, inay igu soo caawiyaan. waan gartay Muqdisho ka imaateen? Muqdisho ka imaaday. haye bal socdaalkiini iyo dhibaatadii idinka keentay ka warbixin. soclaadka iga keenay waxay tahay cunugaas laga qabsaday Sakariya Cabdiraxmaan Mukhtaar Saalax laga qabsaday. Sakariya markii laga qabsaday habeenimo iidoo tahay guriga lagu soo galay. cunugii Sakariya ahaa laga qabsaday, muslimkii jiiraanka ahaa isku soo baxeen jaamar horaaba la tagay boo la qabsaday. markii dambe waxaa la soo ogaaday inuu guri ku xiran yahay oo guri joogo, sidii lagu soo deeyay cunugeyga oo lacag lagu soo furtay lagu soo deeyay. hadeerna waa ila socdaa, waxaa la dhahay cunugan la carar sidii oo la soo cararay marba tuulsa ugu soo harsanay sidii aan ku imaaday dhuumashalan ku soo baxay. inta markaa imaanay kolay dhabitaan nolol soo dhaweeyay ma arkin anaga dada korfuulku nahay ilaa hadeerna ala joognaa, dadka korfuulku ku nahay ala joognaa. wax aan haysana ma lahan, kaar ma haysani, dad jooga ma lahan meeshi, waa kaas raashin ma qaadano. ilmihii see ku nool yihiin Ilaahay baa uga xaaladooda, waxaan hayo ma lahana. magacaygu waa Sakariya Cabdiraxmaan Mukhtaar Saalax. wax meeshaan keentay oo waa dhibaatadaas anigoo gurigeyga dhex jiifo kadibna niman imaadeen aan meeshii ila baxeen, dabadeedna ma qaar qofkii soo diray iyo meeshii ka socdeen ma garanaanay. waa nolol kadibna odayaal ay imaadeen ay soo bixiyeen. markaas waxay ka dambeeyeen ma aqaano guriga waxay buuq ka dhex xaafadii anigoo liisoo kaxeeyay meeshaan bartaan nool keenay. adi cabsi intee dhanba qabtaa maadaama adeerka oo Axmed Mukhtaar Axmed Dowlo sabab loo dilay walaalka gabar uu guursaday, adiga nin dhalinyaro ah tahay bari baad guursan kartaa, cabsi intee dhanba qabtaa adigana in dhibaatadaas kale ku dhacayso? sax waa ilaa waayo tahay gabar kaliya oo la guursaday asaas maanta eelkayga loo dhibaateeyay, anigana lii watay meel lagu xirtay asaas lii soo dhibaateeyay. marka cabsi badan ay meeshaan keentay Soomaaliya, cabsi meesha keentay. dhanka kalena qaar ka mid ah culimada diinka xeryaha dhadhaab oo barnaamijka qayb ka ahaa lana hadlay warbaahinta RTN ayaa ku baaqay in la soo caawiyo qoyskan iyagoo sheegay in qoyskani mushkilad adag uu dhexda kaga jiro. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wixii aad bixisaan oo khayr ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu ogyahay. aayadka Ilaahay wuxuu leeyahay wa ta'aawanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'aawanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. dadka muslimiinta wuxuu Ilaahay u sheegayaa inay is caawiyaan, wanaagana isku caawiyaan, dambi iyo xumaanna isku caawiyaan. ujeedada aan ka leeyahay waxa weeye dad muslimiin ah oo Soomaaliyeed oo uu dhib ku soo qabsay magaalada Muqdisho oo nabadgelyo xumo magaalada Muqdisho aga soo cararay oo ka soo baxay oo soo macnaha aaday wadankan Kenya, gaar ahaan xeryaha Dhadhaab, gaar ahaan xerada qaxootiga xaga dheera yimid ee dhibaataysan ayaa waxa aan ka soconnaa in aan rabnaa in la caawiyo dadka muslimiinta caawiyaan. dadkan aad arkaysaan waa dhibaataysan, dhibaatadana way ka muuqataa. intaasoo ciyaal halkaa socota, aabba lama socdo, ehel kale inta aga soo horreeyay ay ku soo degeen ma jiro. dad soo cararay oo dhibaataysan oo nabadgelyo xumo soo cararay oo halkaan yimid, halkaan cid aga soo horreysana aysan jirin, oday weyn ama qof weyn oo waalid oo oday oo rag oo la socdana uusan jirin. wixii waa dumar iyo caruur.
meesha ay yimideen dad kale waxay u imaadeen Soomaaliyeed laakiin ayagana qaxooti ah oo waxba haysanin oo ayagaba iska allow sahal ku degnaa meesha dad qaxooti ah oo dad kale qaxooti ku soo korkaceen qof kasto qof laga sheekaynayo oo Soomaali ma laha marka dadkaani dhibaato xogla dhibaatadaas ayaa haysata ilaahayna subxaanahu wa ta'ala dadka muslimiinta wuxuu ku buurinayaa wuxuu leeyahay wa anfiqu bima razaqnakum min qabl an yati ahadakum al-maut bixiya wixii aan idinku arsaaqnay aan idinku quudinay intaysan dhimasho idin imaanin oo dhimashada moodka intan idin imaanin wixii aan idinku siinay arsaaqad ah wax ka bixiya qofka mar hadduu dhinto oo nafta ka baxdo waxba uma tariis qofku wuxuu baxsaa wax u taraya wax allaal wixii aad baxsato markii aad dhimaataa tahay ku anfacayaan dadka muslimiinta waxaad ku tartid ku sadaqaysato aakhirana way ku anfacayaan adduunyana ku anfacaysaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala markii aad wax bixiso ilaahay badalkeedu ku siiraa subxaanahu wa ta'ala sunnada calayhi salaam marka dadka muslimiinta guud ahaan gaar ahaan dadka Soomaaliyeed muslimiinta muxsiniinta wax bixiyo ilaahay xoolaha siiyay waxaan ka codsanaynaa oo aan si naxariis leh uga codsanaynaa dadkan muslimiinta oo walaalahood ah ee la soo dhibaateeyay ee loo gubay gabar ay guursadeen loo gubay adeerkood ama aabahood loo gubay dhibaato haddana hartay maadaama wiilkii gabadhii u guursay uu weli gacanta ku haysto oo weli gabadhii wiilkii isqabaan gabadhii cidii aanan loo furin cabsi ay qabaan ama hanjabaad loo geesto ama hanjabaad iyo macnaha meediyaha laga hanjabay telefoon looga hanjabay waxay sheegeen in wiil ayaga kamid ah wiilkii gabadha qabay wiilkii kale ka yaray in la afduubtay habeenad kamid ah dadkii dariska ahaa ay soo deeyeen ayaga sheegeen marka dhibaatadaas soo macnaha soo waday ka soo waday magaalada Muqdisho ka soo waday xeryahan ay imaadeen xeryahan hadii imaadeen wax ka soo horeeyay malaha way dhibaataysan yihiin baahi way haysaa arad wahaya guri la'aan way haysaa magaalada xorooyinka bariyaha rooba ka da'aya roobka xataa maalka galama haystaa marka dadka muslimiinta adduunka oo dhan ku nool gaar ahaan dadka Soomaaliyeed wax galka wax bixinta ku caan baxay waxaan ka codsanaynaa oo aan si naxariis leh uga codsanaynaa in dadkan ay soo caawiyaan oo ay u gurmadaan oo ilaahay dartiis ugu gurmadaan ilaahay dartiis Bashiir Jaxnuug RTN Xeryaha Dhadhaab